magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaa ka jirta xaalado aan wanaagsaneyn kadib markii maanta halkaasi ku dagaalameen ciidamo ka tirsan maamulka Puntland iyo sidoo kale kuwa BSF Puntland oo Mareykanku tababaray in muddo ku sugnaa qayb ka mid ah magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. dagaalka oo saacado badan qaatay waxaa la sheegay inuu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana xaruntii madaxtooyada ee magaalada Boosaaso la wareegay ciidamada BSF-ta oo si weyn uga soo horjeestay dhawaan go'aan uu qaatay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani xilkan uga qaaday agaasimiga ciidanka maamulka Puntland. dagaalkaasi waxay ku eedeeyeen in gadaal ay ka riixayso dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna sheegeen in ciidamada gorgor loo yaqaano oo ka tirsan militariga Soomaaliya ay dagaalkaasi qayb weyn ka qaateen sida warbaahinta u sheegay duqa magaalada Boosaaso oo warbaahinta maanta la hadlay. waxaan u sheegaynaa shacabka reer Boosaasood dawladdu wax badan bay dul qaadatay, wax badan bay waan iyo nabad hawshaas ka gashay. waxaa bilaabay xabad inay dadka xabadeeyaan, hubiya la dhacaan kooxdii amardiidka ahaa. kooxda amardiidka ah waxaan u sheegaynaa bulshada reer Boosaasood in dawladdu ay tallaabo ka qaadayso waajibaadkoodana ay helayaan haddii aysan ka waantoobin dhibta ay ka wadaan magaalada Boosaasood. waxaanu shacabka reer Boosaasood ugu baaqaynaa inay dawladooda la shaqeeyaan, dawladdu inaysan dib wadan, inay muddo badan ka leexleexanaysay inuu magaalada Boosaaso dhib ka dhacdo, ayna hadda iyagu khasbayaan inay bilaabaan rabshado ka abuurma magaalada Boosaasood. kooxda amardiidka ee sheeganaysa ciidamada gorgor waa koox gacmo badan ay ku jiraan oo lagu adeeganayo loona adeegsanayo carqaladda iyo rabshadka abuurka deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso. waxaan u sheegaynaa shacabweynaha reer Boosaasood in dawladdu ay mar walba tallaabada ay qaadayso ay tahay oo ay shacabka ugu turayso, ayna mar walba awaamiirta iyo shuruucda u yaala dawladda Puntland ay fulinayso. digreeto iyo bedelaad iyo xilka qaadis iyo xilmagacawd la diidi karo oo qof xil laga qaaday oo diidi kara ma jiro. waa sifo sharciya weeye. amardiidada ay sameeyeen bay waxay ku abuureen buuq iyo rabshado. buuqa iyo rabshadahaas waxay ku talagaleen inay dadka barakiciyaan, shacabka laayaan, dhibaateeyaan. shacabku dawladooda ha garab istaageen, hana la shaqeeyeen. dawladduna uma dul qaadanayso koox meel gashay oo gacmo shisheeye ku jiraan oo shacabka dhibaateynaya inay meeshaas joogaan, uma dul qaadanayso. dagaalka dad fara badan ayaa ka hadlay, waxaana ka mid ahaa gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga maamulka gobolka Banaadir Cali Yare Cali. waxauna sheegay in xilliga aan loo baahnayn in dhiig sukay oo ka dhaco magaalada Boosaaso ciidamaduna xilligan dirir ay dhex marto. bacdama amnigii gobolka Banaadir aan xafiiskiisa aan afkiisa ku hadlayo inaan baaq u diro dadka walaalaha Boosaaso ku dagaalamaya. meeshaas dagaal runtii adag ayaa ka socda. waxaan walaalahan baaq halkan uga direynaa maamulka Puntland, maamulka Boosaaso iyo ciidanka amniga oo dagaalku ka dhaxeeyo. walaalayaal dagaal wax fiican ma aha. dagaal inaga la weydiiyo xumaantiisa. xabadda soconaysa hala joojiyo, dagaalka hala joojiyo, dadka masaakiinta ah ha loo naxo. runtii munaasab ma aha ciidankii muddo 15 sano ah buuraha kula dagaalamayay al-shabaab in maanta dhiigooda la daadiyo oo lagu duulo. runtii wax qurxoon ma aha. laamaha amnigu meel kasta ay joogaan waa isku jaal, hal cadow ay leeyihiin, cadowgooduna waa al-shabaab. muuqaalo kala duwan oo xilligan munaasab ahayn ayaa laga soo warinayaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, waxaana la isku adeegsaday rasaas culus oo u dhaxaysa ciidamada Puntland iyo kuwa BSF-ta ee maamulka Puntland. Maxamed Xuseen RTN, Muqdisho.